ururka dhalinyarada samafalka kaalme kuwan oo fadhigiisu yahay magaalada Burco ayaa kaalmo lacageed gaarsiiyay qoysas danyar oo ku sugan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxaana ka hadlay goobta lagu qaybinayay kaalmadaasi gudoomiyaha ururka samafalka kaalme kuwan Cabdi Maalig Muuse Coldoon oo baaq u diray bulshooyinka islaamka inay soo kaalmeeyaan dadka saboolka ee aan haysan waxay ku afuraan iyo waxay ku ciidaan toonna xubin kamida dadka la gaarsiiyay kaalmada lacageed ayaa ka mahad celiyay kaalmadaasi haddaan nahay ololaha kaalmee kuwa ka shaqeeya istuska dadka jilicsan dadka baahan dadka danyarta iyo inta ladan ee walaalahooda ee garabkooda istaagi karta ee dhibaatada la qaybsan karta ololahaas haddaanu nahay maanta ay taariikhdu tahay Ramadaan 18,438 hijriya xaruntaan ku leenahay magaalada Burco horteeda maanta roobdaayo oo naxariista Ilaahay daayso ku qaybinaynaa qadar lacaga oo gaadhaya $2,700 lacagta waxaan u qaybinaynaa dad xula oo danyara oo in badan xafiiska nagu soo booqday qaarna aanu raadinay oo aanu tagnay dad aan ku kalsoonahayna ay noo sheegeen ololaha kaalme kuwan runtii Burco xaruntiisa weyn ay tahay maalin kasta dad hor fadhiya ayaan ugu nimaadnaa marka runtii baahidu waxa weeye noo imanaysa aad ay u balaaran tahay dadkina wayna beegsanayaan bil Ramadaanna waa lagu jiraa insha Allah waxaan doonaynaa dad badan oo masaakiina dad badan oo danyara dad badan oo agoona dad badan oo aan haysan waxay cunaan dad badan oo caydhoobay dad badan oo aan haysan waxay ku ciidaan ayaan doonaynaa gabagabada Ramadaanta inaynu dhamaanteen u ololayno oo ka farxino maanta lacagtan aanu bixinayno 2,700 waxay naga soo gaadhay dumar reer Burco oo ku sugan Riyaad oo samafalayaal Ilaahay khayr ha siiye dumarkaas oo ololaha kaalme kuwan si gaar ah ugu xidhan oo sanad kasta ay Ramadaan tahay soo gaarsiiya lacag kala duwan ururka samafalka kaalme kuwan ayaa ku howlan inta badan gaarsiinta iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan Cali Daar Maxamed Boos TV Universal Burco.